سوري صاحب يلا waxaan ila wadaagaya xogta ugu dambeysay dagaalada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha Jabuuti Firaaq Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu laabtay furmaha hore ee dagaalka isagoo kulamo halkaas kula qaadan doona saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ka degay degmada Cadale halkaas oo ay ka hogaamin doonaan dagaalka shabaab loogu xureynayo deegaanada Hirshabeelle. Sidoo kale madaxweynaha ayaa halkaas kulamo kula qaadan doona saraakiisha ciidanka hogaaminaysa iyo dadka deegaanka. safarka madaxweynaha ayaa daaran dhiirigelinta ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka si dalka ay ku xoreeyaan kooxaha al-shabaab. Si kastaba kooxda al-shabaab ayaa dhawaanadan bilowday in xoog soo saarto fariismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa dadka deegaanka ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Saaki ayay ahayd markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar xoogan ku soo qaadeen fariisam ciidanka dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Sabiib. sidoo kale maalmo ka hor ayay markii kooxda al-shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen deegaanka Awdheegle halkaas oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed fariismo ku lahaayeen. dagaalka saaki al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Sabiib ayaa jilbaha la isku aastay taas oo ugu dambeyn kooxda al-shabaab lagu gaarsiiyay jab xoogan. al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe bilowday weeraro gaadmo ay ku soo qaadayaan xerooyinka ciidanka dawladda ay ku leeyihiin gobolada dalka kuwaas oo al-shabaab doonayaan in ay la wareegaan. kooxda al-shabaab ayaa soo sheekeysay in guud ahaanba Soomaaliya la wareegi karto kadib shir ay ku qabsadeen magaalada Jilib halkaas oo dhawaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay duqeyn ka geysteen. duqeyntaas ayaa lagu soo waramayaa in kooxda al-shabaab loogu dilay horjoogiyaal ka tirsan kooxda sida ay inoo xaqiijiyeen ila ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. si kastaba al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalo gaadmaha ku soo qaadayeen xerooyinka ciidanka dawladda Soomaaliyeed taas beddelkeeda ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna bilaabay howlgalo ay dalka ugu sifeynayaan kooxaha al-shabaab. waxaan ka codsanay haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar YouTube-ka si aad u helo saaxiibo adiga oo kale u wanaagsan aad iyo aad u mahadsan tahay. Anagana qiimeeyay الحرية